waagaag dadka daawanaya waxa gadaalkayga ka muuqda oo aad gadaalkayga ka arki kartaan goobtan caanka ah ee loo yaqaano Hagia Sophia waa maclam siyaaxi ah ama goob aad taariikhda caan ugu ah waxaa dhisay dadkii la dhihi jiray Constantinius-ka oo halkan ka arrimi jiray waqti aad u dheer hadda waxaa laga dhigay meel sida museum oo kale ah ama matxaf ah oo dadku ay dalxiis u yimaadiin oo ay kala socdaan taariikhaha halkan waxay ahaan jirtay kaniisad saddex marxaladood oo kala duwan oo ay soo martay mar walba waxaa laga dhisayay kaniisad ama goob dadka Christianka ahi ay ku cibaadaystaan ama iskugu yimaadaan hase yeeshee markii ay Cuthmaaniyiintii wadamada islaamka badankooda ka talin jiray ay qabsadeen wadanka Turkiga ayaa waxa loo rogay marxaladaha kamid ah masjid weyn oo minaarada leh oo dadku ay ku tukadaan markaas kadibna waxa loo bedelay goob loo dalxiis tago oo dadku ay yimaadaan oo taariikh aad u kala duwan maadaama ay soo martay oo ay tahay meel si weyn dagaalo kala duwan iyo taariikho kala duwan iyo xadaarad iyo ilbaxyo kala duwan ay soo maamuleen ayaa sidaas loogu rogo meel dadku ay dalxiis ahaan u yimaadaan halkan waxaa hadda saf ku jira oo aad arki kartaan dad aad u fara badan oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah oo halkan u imaanaya in ay booqdaan Hagia Sophia oo ay u kuur galaan bal taariikhii ay soo martay iyo wixii ay caanka ku ahayd darbiyadeeda iyo goobaha kala duwan ee gudaha ku yaala waxa ku xardhan waxyaabo muujinaya taariikhii ay soo martay Hagia Sophia ama waxa la oran jiray sidoo kale Hagia Sophia marka waa mid kamid ah macaalimta opposite-keeda ama kasoo horjeedkeeda waxaad ku arki kartaan oo kasoo horjeeda masjidkii aan isagana ka hadlaynay Sultan Ahmed oo isagana kamid ah goobaha Istanbul caanka ku tahay masjidkan isagana dadyo aad u fara badan ayaa mar walba iskugu yimaada oo maaragtay soo booqda oo arka halkaasna ka ogaada taariikhaha uu soo maray wadankan Turkiga